iyadoo dhawaanun ay ahayd markii wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ay soo saartay digrootooyin ay ku sheegayso in kowda bisha 9 ee sanadkan uu bilaabmi doono sanad dugsiyeedka 2018 ilaa 2019 ee dugsiyada gaarka loo leeyahay kaasoo markii hore dugsiyadaasi ay bilaabayeen waxbarashada kowda bisha 8 ee isla sanadkani ayaa arintaasi waxay sababtay ismaandhaaf u dhaxeeya wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland haddaba kulan warbaahineed ay si wada jir ugu qabteen gudaha magaalada Hargeysa maamulayaasha kala duwan ee dhammaan dugsiyada gaarka loo leeyahay ee gudaha magaalada Hargeysa waxay si adag uga hadleen digrootooyin kala duwan oo ka soo gaaray wasaaradda waxbarashada waxaanay sheegeen inay ku midaysan yihiin in 4 bishan 8 ee sanadkani oo ku beegan maalinta Sabtida ay si rasmi ah u bilaabi doonaan sanad dugsiyeedkooda iyagoo fariimo kala duwan u diray bulshada Soomaaliland madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada waxaanu ku bilaawnay waxaanu cabashada ka qabnaa wareegtada sababaha hoos ku qoran kow in wasaaraddu nagu wargelisay bilowgii sanad dugsiyeedkii 2017-2018 in uu furmi doonaan dugsiyadu kalendar yeerka 1 August sidaan horeba idinku sheegay 2018 sidaasna lagu wargeliyay dhammaan ardayda waalidiinta iyo shaqaalaha laba in waqtiga ay wareegtadu soo baxday oo ahaa waqti aan ku haboonayn maxaa yeelay 25 bishan ay soo baxday oo uu taagan yahay furitaankii dugsiyada sanad dugsiyeedku sida ku cad kalendar yeerka wasaaraddu ay soo saartay qodobka saddexaad wuxuu ahaa ayaanu u gudbinay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo DG-ga iyo cidii khusayso in bisha laga jarayo sanad dugsiyeedka sanad dugsiyeedka ay ka go'an tahay saacada waxbarashada iyada oo saacadaha waxbarashada iyo dhamaystirka manhajka oo marka horeba ay kala badnaayeen culayska uu leeyahay manhajka iyo saacadaha iyo xisaska la dhiganaya haddii laga sii gooyo bil kalena aan waxba laga dhiganaynin wax badan lumayaan taafraad iyadoo fasaxa dheer aanay dani ugu jirin ardayda iyo waalidiinta sida aanu mar walba ka helayna waalidiinta ayna siinayaan feedback ka soo baxaya mataqadii raajica ama noogu soo wargelinayaan iyadoo iskuulada gaarka ahi ay ka hawl galaan shaqaale aad iyo aad u fara badan dhaqaalahooduna ku tiirsan yahay fiiga laga qaado ardayda taasi haddii ay dhacdana ay dhacayso dugsiyadii markaa inay istaagaan oo ay dumaan iyadoo ay jiraan kharashyo fara badan oo ku socda dugsiyada gaarka sida kirooyinka mushaharada shaqaalaha laydhka biyaha iyo wixii lamida annagoo tixraacayna go'aanka ka soo baxay wasaaradda annagoon qaadan karaynin culayska qaadi karaynin aanaan hirgelin karaynin wareegtada sidaa daraadeed waxaanu idinka codsanaynaa dib u eegis si degdeg ah waxa ka mid ah runtii dadaalada kaalinta ay ugu jiraan waxbarashadu waxa soo shaqaalay dhammaan dawladda cashuur bixiyaan oo cashuur bixiyaan waxay qayb ka qaateen dugsiyada gaarkii in dakhligii dawladda ay kobciyaan oo ay kor u qaadaan boqolkiiba 25 ama 30 ardayda dugsiyada gaarka dhigataa waxay ku dhigtaan free bay ku dhigtaan runtii madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa inaad arrinkayaga aad soo faragelisid oo aniga iyo wasiirka annaka iyo wasiirka adna dhexdhexaadisid waa Idruus Cabdillah Ismaaciil Beershiya telefishinka Universal Hargeysa.